السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. nin xikmad badan ayaa lagu yiri qalbiga sidee ayuu ku caafimaada yacni qalbiga sidee ayuu ku wanaagsanaada wuxuu ku jawaabay dikriga iyo xuska alle ayuu ku wanaagsanaada qalbiga iyo carabka la ilaaliyo mar kale ayaa lagu yiri dadka yaa ugu xun wuxuu ku jawaabay caalim aqoon leh oo aan xafidi karin carabkiisa mar kale ayaa lagu yiri dadka yaa ugu xun wuxuu ku jawaabay kuwa carabkooda waxa uu ku hadlaayo aan ka warhaynin mar kale ayaa lagu yiri dadka yaa ugu wanaagsan wuxuu ku jawaabay qofka wali xasuusan qofkii awaalka u galay ama qofkii caawiyay sidoo kale nin xikmad badan ayaa lagu yiri naxariista wax nooga sheeg wuxuu ku jawaabay qofka arkay hooyo wuxuu arkay naxariista mar kale ayaa lagu yiri naxariista wax nooga sheeg wuxuu ku jawaabay awlaad qofkii dhalaa wuxuu helay naxariista mar kale ayaa lagu yiri naxariista wax nooga sheeg wuxuu ku jawaabay raac wadadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waayo rasuulku wuxuu ahaa qof aad u naxariis badan wadada raacana waxa ugu wanaagsan wadadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo kale nin xikmad badan ayaa lagu yiri maxaadan u kibreynin wuxuu ku jawaabay kibirka alle ma jeclo anigu u jeedo wax uu rabbigayga igu jeclaanayo maxaan u sameeynaa wax rabbigayga ka careysiinayo qof kasto adoomada ilaahay iskala weynaada wuxuu walaal la yahay ibliis waayo qofkii ugu wareeyay ee kibra wuxuu ahaa ibliis kibirkii fircoon wuxuu ku soo dhamaaday in bad lagu qarqiyo namruudna kibirkiisa wuxuu ku soo dhamaaday silac ilaahayna wuxuu ku saliday kaneeco rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri jannada ma galaayo qof qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo kibir ah inta badan dadka xun ma dareemaan xumaantooda bakhiilkana wuxuu isku haystaa inuu yahay qof dhaqaale badan oo wax badan haysta kuwa aan xishoonna waxay isku haystaan inay yihiin dad si wanaagsan wax u sheega kan dadka isku diraana wuxuu isku haystaa qof nasteexa badan inuu yahay midka kibraana wuxuu isku haystaa inuu yahay qof nafsadiisa ku kalsoon waxa kaloo lagu yiri dadka dhexdiisa ma jiraan qof aan la iloobi karin wuxuu ku jawaabay haa waa uu jiraa qofka isdhulliga oo u dhool cadeeya dadka hadal wanaagsan kula hadla waa waxa uu quruxda badan ee bini aadamku ugu tago qulubta dadka kale qofkaasina ma iloobaan sidoo kale nin xikmad badan ayaa lagu yiri yaad u aragtaa cadow wuxuu ku jawaabay nafteyda mar kale ayaa lagu yiri yaad u aragtaa cadow wuxuu ku jawaabay caajiska iyo wahsiga nafteyda haayo mar kale ayaa lagu yiri yaad u aragtaa cadow wuxuu ku jawaabay cadow aan naftaada ahayn ha arkin waayo wax kaaga cadowsan naftaada ma jiraan sidoo kale nin xikmad badan ayaa lagu yiri wixii kugu qorxoonaa noloshaada maxay ahaayeen wuxuu ku jawaabay maalintaan bilaabay wax aqrinta mar kale ayaa lagu yiri aad ka dhigan lahayd saaxiib wuxuu ku jawaabay buugaagta mar kale ayaa lagu yiri dadka ugu wanaagsan yihiin dadka wuxuu ku jawaabay kuwa carabkooda ku quudiya wax aqrinta dadkana waxa ugu wanaagsan dadka carabkooda uu dhowrsan yahay carabkana wuxuu ku dhowrsanaadaa wax aqrinta iyo cilmiga sidoo kale nin xikmad badan ayaa lagu yiri in aad cadowgaaga ka aamusto oo aadan la dagaalamin soo dhibkaaga ma ahan wuxuu ku jawaabay kuwa arkayo awooddaada waxa ku waajib ah in ay kula dagaalamaan adigana waxa waajib kugu ah kuwa aad u aragto inay daciif yihiin inaadan u muujinin awooddaada ibni aadanka awooddiisa ugu weyn laba mar ayay muuqataa waana markuu aamusan yahay iyo markaad awooddo inaad aarsato haddana aad iska dhaafto dagaalka rasmiga ahna waa inuu qofka mar walba uu ku dadaalayo inuu carabkaaga dhaqaajiyo yacni si uu kaaga hadalsiiyo si uu u ogaado xanuunka aad dareemayso adigana waxa waajib kugu ah inaad u dhoola caddayso kuwa dagaalamayaan wuxuuna yiri xikmad aad u cajiib badan isagoo muujinayo aamusnaanta awoodda ay leedahay waxaa jiro hadal aanan waxba laga fahmaynin iyo aamusnaan wax walba laga fahmaayo muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh